hay-adda Gift of the Givers ayaa maanta deeqdan oo raashin biyo iyo maacuun isugu jirta u qaybisay in ka badan 200 oo qoysas ah oo kamid ah dadkii abaaraha uga soo barakacay deegaanadooda isla markaana deegaansanaya duleedyada magaalada Muqdisho. Dr. Cabdirasaaq Maxamed Xaashi madaxa barigii bartamaha Afrika ee hay-addan ayaa sharxaya noocyada deeqda ee maanta qoysaskan danta yar ay gaarsiiyeen. Kaamka Malabley oo ku yaalo Muqdisho maxaan soo dhaweynay runta dad abaaraha ay soo barakaciyeen oo cusub oo tuulo hadda tuulooyin barkoodan ka shaqeynaynaabo aan barkood ka garanay dadka hadda inta joogo wasaaradda arrimaha gudahana way nala joogtaa sharaf Allah siiyo waxa la dhahay waan soo wada gurmanay dhamaanteen insha Allah raashin iyo wixii ku dagi lahaayeen iyo biyihii waan isku darnay wixii kale oo aan sii qaban karnaa waan qabanaynaa inkastoo hadda aan ku mashquulsanahay banaanka Muqdisho iyo meelaha hadda abaaraha ay ka dhaceen oo Gift aad ugu mashquulsan tahay insha Allah waxaan filaynaa Ilaahay inuu roob noo keeno mar dhow. Marwa Zahra agaasimaha samafalka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa hay-adda uga mahad celisay kaalinteeda gurmadka. hay-adda Gift of Givers kaalmada bilaadanimo ay u fidisay walaalaheena abaartu ay ku soo dhafatay gobolada ka soo qaxay ummadda Soomaaliyeed waxaan u jeedinaynaa in ay hay-adaha waxaan u jeedinaynaa inay ku daydaan hay-adda Gift of the Givers kaalmada ay sameysay waxaan kale ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogno ugu baaqaynaa in ay walaalahooda muslimiinta ah ee abaartu ku dhifatay inay kaalmo siistaan. Qaar ka mid ah qoysaskan danta yar ee maanta kaalmada la gaarsiiyay ayaa dhankooda ka mahad celiyay gurmadka loo sameeyay. hay-adda Gift waxaan ugu mahad celinayaa dhibaatadan hayso maanta oo noogu soo gargaartay oo alaab iyo cunto ay na siisay maadaama aanu dhib qabno oo noo gargaartay baraka iyo iimaan Allah siiyo. Cabdinaasir Maxamed, Telefishinka Cable, magaalada Muqdisho.